hal askari ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay rasaas ay ciidamadu rideen kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo taageerayaal la socday ay xoog ku galeen xarunta xisbiga wadani oo ciidamada boolisku ay xalay si xoog ah kula wareegeen. gudoomiye Ciro ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay xorriyadda u dagaalamaan isla markaasna ay isugu soo baxaan guud ahaanba xarumaha xisbiga ee dalka. magaalada Hargeysa gaar ahaan bariga magaalada ayaa aad ciidamo xoog badan loo buux dhaafiyay waxaana xukuumaddu ay sheegtay inay ka hortageysay inay xisbiga wadani uu isugu yimaado xaruntiisa iyagoo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid ammaanka dalka wax lagu yeelayo. nala daawo muuqaal laga duubay qaabkii gudoomiye Ciro uu u galay xarunta xisbiga wadani ee guud oo ciidamo ay ku gadaamnaayeen. intaasi kadib gudoomiye Ciro ayaa waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay isugu yimaadaan guud ahaan. imika waxa soo baxaya gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo hoggaanka xisbiga oo dhan way lugeynayaan. waa kan gudoomiyihii صعدة وانا كقاعدنا يا سيدي كوسا كقاعدنا يا سيدي xaruntii guud ee xisbiga loo socdaa loona joojin maayo nidaamka maanta dalka jooga daalimka ah socda waa la soconayaa lagana baqan maayo xarunta guudna xoog baa lagu xoreynayaa insha Allah waa taa xaruntii guud ee xisbigu waana la socdaa socda xoog baa lagu furanayaa xarunta wata xaruntii guud waa la furtay xoog baa lagu furtay xoog baa lagu furtay banee xoog baa lagu furtoon ku furanay waa ka gudoomiyihii الله أكبر gudoomiye Cabdiraxmaan عليك الشغالين اللي يساعدوا هو اللي يجي إما كسرنا بضع أيام كل من حفيزك شيء صور نصاص في رمضان يلاقوا بدي مسكري اسكندريه وارتقنا عسكري عن الشيء وسيسي وتحسيبي ساسع قدام وداوع وين وداوع بلي هلا هذا وداوع بلي waxaan u sheegayaa shacbiga reer Soomaaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kale uu dastuurku fasaxay iyo shuruucda dalka
inay isugu yimaadaan kuwan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacbiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada booliiska waxaan soo jeedinaya waxa waajibkoodu yahay inay muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timiya ee xasaasta ku dhigaya waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibka mas-uulka u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasiya oo ajendo siyaasiya leh oo dalkeena horumarkiisa iyaga dadkiisana ka shaqaynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaadhsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warrannaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay maanta qura maaha berrina waanu imanayna gobolladoo dhammina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan